kan oo ka dhacay magaalada Diridhaba ayaa waxaa ka soo qayb galay taliyayaasha hay'adaha amniga ee Somaliland oo hogaaminaya taliyaha guud ee ciidanka Somaliland General Nuux Ismaaciil Taani waxaana looga hadlayay xoojinta iyo xiriirka nabadgelyada dawlad deegaanka Soomaalida iyo Somaliland waxaana sidoo kale kulankani ka soo qayb galay taliyaha guud ee ciidanka booliska gaarka ee dawlad deegaanka Soomaalida mas'uuliyiinta kale ee hay'adaha amniga ee deegaanka iyo taliyaha guud ee ciidanka qaranka ee bariga dalka Ethiopia General Zewdu Balay waxaana si qoto dheer looga dooday xoojinta iyo iskaashiga nabadgelyada dawlad deegaanka Soomaalida iyo Somaliland taas oo taliyayaashu ay sheegeen inay ka go'an tahay adkeynta nabadgelyada kadib markii kulankaasi soo dhamaaday ayaan wax ka weydiinay taliyaha guud ee ciidanka booliska gaarka ee dawlad deegaanka Soomaalida General Maxamed Axmed ayaa waxa uu ka hadlayaa ujeedooyinka kulankani shirkan waa shir ay waqti kasta aan qabsano oo amar committee waxaan naga ama hay'adaha nabadgelyada wada shaqeyntooda waqti kasta shir la qabto weeyaan marka maanta waa maalinkii afraad oo lagu qabanayo magaalada Diridhaba kuwa ka soo qayb galayna annaga dawlad deegaankeena hay'adaha nabadgelyada iyo kuwa federaalka aba sida ciidamada qaranka qaybta hararge kuwa marajayada ka aaganka ka shaqeeya ciidanka federaalka booliska iyo hogaaminta hay'adda nabadgelyada Diridhaba ismaamulka Diridhaba marka annagoo intaas xaaladda xuduudda ayaa laga wada hadlayaa maadaama aan Somaliland xuduud dheer aan leenahay aagaasna ay waxyaalo badan ay ka soo galaan ama kontrabaan ha noqoto ka hortagga tarbiibka ama qobleyga waxaan nidhaano iyo dadka ka ganacsada sidii looga hortagi lahaa qofka sharci darrada ah sidii loo qaban lahaa ama soo gudbaya ama ku wadankana ka baxaba marka waxyaalaha sharci darrada ah ee aad meelahaas oo dhaqdhaqaaqayn ugu badanin ka hortag laga hortagayo weeyaan shirkan marka waqti kasta heer aan marka kanaan dhigayna labadii bilood mar baa la qabtaa haddana wixii annaga naga hooseeyay xuduudada ee jaarka ah toddobaadkiiba mar kasta inay sarkaan 40 saac mar inay wada hadlaan oo wixii jiray ka wada hadlaan oo lagaga shaqeeya marka kana xaaladda guud ee qabalayada hoose iyo xuduudda waxay ka yimaadeen information ah mid aan ku falanqeynayno oo labada dhinacba wixii ka jira aan ku falanqeynayno qorshooyinka aan qaadanay maxaan ka shaqeynay maxaan ka shaqeynin hadda kadib maxaan ka shaqeynaynaa intaan ilaana aan 3 bilood program aan la baxno oo programka waqti kasta sidii looga shaqeeyay aan ku gamgameynayna ama aan ku wada hadlayno weeyaan shirkan geesta kale taliyaha guud ee ciidanka Somaliland General Nuux Ismaaciil ayaa waxaan wax ka weydiinay faa'iidooyinka ugu jirta kulankani Somaliland iyo dawlad deegaanka Soomaalida ujeedadu waxa weeye dhowr arrimood waxa ugu weyn nabadgelyada sidii aan iska kaashan lahayn nabadgelyada waqtigii eegan dhulkan geeskan Afrika waxyaabo badan oo dhul dagaal jira amba shabaab ha ahaato amba daacish ha ahaato amba dagaalooyin kale ha ahaatee yaa jira waxyaabahaasoo nabadgelyada khalkhal gelinaya sidii aan iska kaashan lahayn iyo horta yaa ugu weynay shirkan hadda aan galay wixii aan ka wada hadlayna waan ka heshiinay waxaa ka mid ahaa kontrabaanka hubka amba ha ahaato amba ha ahaato wixii kontrabaanana inaan wax ka qabanno waxaa kaloo ka mid ahaa sidii human trafficking dadka iska socda ee behaafka ee tahriibayaasha la yidhaaho in iyagana sidii wax looga qaban lahaa waxaan u sheegnay in wax badan ka qabanay annagu danka iyaga baabuur badan oo 20 la qabtay xaggaana iskaashiga xagga xogtana waan kala qaadanay caadi baan u kala qaadanaa oo xadadka ciidamada jooga oo isku yimaadana way kala qaataan talisyaduna way kala qaataan waan kala helaa halkan nabadgelyada Somaliland waa nabadgelyada Ethiopia waa nabadgelyada Somaliland dad isku xidhan oo saa isku aabaan nahay oo isla hal jira oo haddii cid wax gaaraan kalena uu ka xanuunsanayo marka aad baan ugu mahadnaqayaa dadka Ethiopia oo aad u wanaagsan weeye